هويو وما أدراك ما هويو قبل الصوماليات وهويو waxaan u malaynayaa inteenan meeshaan fadhida kulligeen iyo inta kale iyo inta adduunka joogta qof loo tilmaamayo hooyo ma jirto laakiin dadku way kala bedelan yihiin hooyada way ku kala bedelan yihiin hadba abaalka ay ku leedahay iyo doorka ay ku leedahay markay dhashay kadib ayay dadku ku kala bedelan yihiin anigu xamza ahaan waxaan ku jiraa dadka hooyadu ay micnaha gaarka u leedahay sababtana waa idin sheegaa anigu waxaan ahay qofka ugu yar reer waxaan ahay yaraan qofka iigu soo xiga walaaladay wuxuu iga weyn yahay dhowr iyo 10 sano waana gabadh halkaas gabadh bayna hooyaday dhashay iyo aabahayba dhowr iyo 10 sano aabahay hooyaday iyagoon dhalin baa aniga la dhalay aabahay markaan dhashayba uu dhintay Allah u naxariisto marka ma garanayo aabahay suuradu lahaa iyo si uu eg yahay ma garanayo aniga ma aqaano marka hooyaday baa aniga soo korisay waxaan ahay habar korisay waxaan aaminsanahay inay ii soo korisay sida ugu fiican oo ilmo loo koriyo waxaan aaminsanahay hooyaday inay wax ii bartay sida ugu fiican ee ilmo wax loo baro hooyaday waxay quraanka ii xifdisiisay oo quraanka lay baray oon xifdiyay anigoon 10 sano gaarin hooyaday waxay ku dadaashay inaan wax barto waxaan ahay qofka kaliya oo walaaladeeda iga waaweyn familka academic noqday oo waxbarasho sare aaday oo bartay baan ahay aniga